بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك نرجع. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك النشور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. intaa kadib ikhwaan الkiraam, galabta waa galab talaado ah kuna beegan 6da bisha ramadaan 1444 nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi wasalam. waxaan u madlannahay inaan wax iska tusinno, wax isaga sheegna siirada nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi wasalam. kitaab yar oo la yidhaaha al-urjuuz almii'iya fii xaali ashrafi albariya inaan wax isaga dhigno in sha allahu tabaaraka wa tacaala ayaan u ballansannahay. kitaabkaas waa kitaab yar oo 100 tixood ama 100 beyd ah. intaan marka kitaabka u gelin iyo mu'alifkiisa waxaan rabaa inaan wax yar dul istaago ikhwaan alkiraam, siirada nabigeena calayhi salaatu wassalaam, ahamiyadda iyo qiimaha iyo mansilada ay leedahay inaan wax ka tilmaamo. sidaad ogsoontiin ikhwaan alkiraam, nabigeena calayhi salaatu wassalaam siiradiisa iyo taariikhdiisa taariikh la sheega tan ugu nadiifsan, ugu tahirsan, uga quruxda badan, qalbi qaboojinta laga helo weeyaan. maxaa yeelay waa juz ka mid a diinteenna, waa qeyb ka mid a cibaadada rabbigan subxaana wa tacala aan ugu dhowaano. maxaa yeelay xayaatada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd xayaato ku astaysan albadlu waalcataa, bixin iyo jihaad iyo sabar iyo musaabara. lidaalika siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam 10 faa'iida ayaa qofka mu'minka uu ka heli karaa. 10kaasaan rabaa insha allahu tabaaraka wa tacaala si cujaalo ama degdega inaan u tilmaamo, kadibna aan kitaabka u gudubna insha allahu tabaaraka wa tacaala. maxaa yeelay shayga aad darsayso ood wakhtiga gelinayso, booska iyo qiimaha uu jooga haddii aadan indhaha ku haynin oo aad kugu muuqanin, waxaa laga yaabaa inaad ka cajisto. laakiin markaad shayga dalbaysa qiimaha uu leeyahay iyo mansilada uu jooga markaad garanaysid, wakhti ayaad ku bixinaysaa, adoo ku faraxsan ayaadna muxuu ahaa ka faa'iidaysanaysaa. qodobka koobaad amaba faa'iidada koobaad oo qofka siirada nabigeena barta calayhi salatu wasalaam uu ka heli waxaa ka mid ah in siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay tahay uswatan wa qudwatan lana. adiga cid baad ku dayani, cidda ayada waatee waa nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam. rabbigan wuxuu le rabbigan wuxuu le caza wajal, laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana. haddii marka aad doonaysid inaad nabigeena ku dayata calayhi salaatu wasalaam, meesha aad kaga dayanay albaabka aad ka geli waa siirada nabigeena iyo xadiisiisa sala allahu calayhi waaalihi wasalam. qodobka labaad, siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa miisaanka lagu miisaamo camalka. wax walba miisaan bay leeyihiin. sonkorta miisaan ayay leedahay, biyaha miisaan ayay leeyihiin oo waa litir, tanna wahaakada. marka acmaasha aan samaynayno inay toosan tahay iyo inay qalloocan tahay waxa lagu miisaama waa siirada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam. dariiqa nabigeenna tan marto oo dhanka iyada ku toosta, taa iyada waxaa weeyaan waa sax, waa camal suuban oo wanaagsan. tan daba martana waa mid qalloocsan. marka miisaanka lagu miisaamo camalka waa siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam. qodobka saddexaad, siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay qofka muuminka ugu kaalmaynaysaa inuu kitaabka alle fahmo. kitaabka alle inaad fahamto waxaa aad kugu kaalmaynay siirada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam. nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii ummuna caaisha la weydiy khuluqiisa iyo dhaqankiisa, waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan, dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa qur-aankay ahayd. wa innaka la calaa khuluqin cadiiminna rabbi baa ku tilmaamay, rabbigan subxaana wa tacala ayaa nabigeena ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. marka qofku waxay ugu kaalmaynaysaa inuu kitaabka ilaahay fahmo. markii aad aayad qur-aan aragto markiiba waxaad la aadaysaa
siirada nabigeena calayhi salaatu salaam aayaddaas sida uu dabaqay qodobka afraad amaba waxaa weeyaan faa'iidada afraad oo laga heli diraasada siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay kuu kordhinaysaa inaad aad u jeclaato ood aad iyo aad muxuu ahaa maxabadaada ay kororto siirada nabigeena ama nabigeena calayhi salaatu salaam inaad jeclaato siiradaas aad baranaysa waxay kugu caawinaysaa inaad xubbigaada iyo jacaylkaada iyo kalgacaylahaad u haysa nabigeena uu aad u kordho oo hadduu meel dhexdhexaad joogo meel sare uu gaaro maxaa yeelay waxaad arkaysaa runtiisii calayhi salaatu salaam siirada waxaad ka dhexalaysaa sidqigiisii iyo runtiisii raxmaddiisii cadaaladdiisii dulqaadkiisii sakhaa iyo muxuu waxbixintiisii wahaakada yacnii wax aan la koobi karin oo sifaad ah oo ilaahay subxaana wa tacaala qof bashara usa iskugu geynin hal qof oo bashar ah ayaad ka helaysaa siirada nabigeena calayhi salaatu salaam markii aad eegto sifaadka nabigeena calayhi salatu slam inay saa ahaayeen arrinka waxay kugu xambaaraysaa marka inaad nabigeenna jeclaato calayhi salaatu wasalaam aadna ka mid noqoto mu'miniinta dhabta ah oo nabigeenna uu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam laa yu'minu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi waannaasi ajmaciin qofkiina iimaan kaamil lagama helaya ilaa aad muxuu ahaay ka jeclaada ama iga jeclaada naftiisa iyo caruurtiisa iyo inkastuu jecel yahay iyo dadkao dhanba marka barashada nabigeenna calayhi sala slm siiradiisa waxay kugu xambaaraysaa inaad nabiga aad u jeclaato calayhi salatu slam cumar ibn khataab radi allahu taala ardah ayaa nabigan wuxuu ku leey nabi allow wax walbaan kaa jeclahay ilaa naftayda mooyane naftayda waxaan ahayn waan kaa jecel laakiin naftayda kaama jecli markaasaa nabigan wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa aad naftaada iga jeclaato cumarow markaasaa wuxuu yidhi hadda ayaan rasuulka allow haddeertaan laftayda waan kaa jeclahay markaas wuxuu yidhi alana yaa cumar cumarow hadda ayaad muxuu iimaankaaga u taam noqday oo kaamil u noqday qodobka shanaad ama faa'iidada shanaad diraasada siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa baab abwaabta iimaanka uu ku kordho waa baab abwaabta iimaanka uu ku ziyaada ood ku xogaysta ka mid ah maxaa yeelay ilaahay subxaanaه wa tacaala markuu leeyahay am lam yacrifuu rasuulahum fahum lahu munkiruun qofka markaad diidayso ood waxaad la imaada aad diidaysa been ayaad ku tuhmi in xogtiisa ay dhimanta ayaad ku tuhmi inuu dhaqan xun yahaad ku tuhmaysaa wuxuu keenay marka waad iska hubinaysaa laakiin nabigeenna saas ma ahayn xilligii jaahiligu u ahaa moxamed alamiin ayaa la dhihi jiray waana u tegi doonaa insha allah tabaaraka wa tacala akhlaaqdiisa qaybo badan oo ka mid ah oo runtii aad u cajaa'ib badan ayaan u tegi doonaa biidn illahi caza wajal am lam yacrifuu rasuulahum rasuulkooda miyaynan aqoonin fahum lahu munkiruun kadibna ayaga ay yihiin kuwo inkiro haddii ay muxuu ahay ay ku aqooni lahaayeen dabci xun iyo been iyo wax isdabamaris haba inkirena laakiin iyaga oo yaqaana asaadiqu alamiin u yaqaano ayay inkiri jireen markaas rabbigan wuxuu ku cambaaray arrinta ayada wuxuu leeyahay war miyaynan ogeyn nabiga aynan aqoonin sifaadkiisa qiimaha badan xaal ay inkiraan qodobka lixaad diraasada siirada nabigeena calayhi salaatu salaam qofku waxay ugu kaalmaynaysaa inuu diintii ilaahay oo dhan fahmo diintaadoo dhan inaad fahamtay kugu kaalmaynaysaa markii siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam aad barato qodobka toddobaad siirada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dariiqad saxda ah oo dacwada lagu guta ayuu ku bari qof baa gaf ku dhici qof baa jahaalo ku dhici sidee lagu daweyni waxaa lagu daweynayaa qul haadihi sabiilii adcuu ila اllahi calىa basiiratin ana waman itabacan dariiqaasaa lagu daweynayaa wax alla wixii dacwo ah amaba ma'muur ha noqdeena ama manhi ha noqdeena waxaa lagu daweynayaa ariiqii caddaa oo bacwaanka ahaa uu nabigeena mari sala allahu calayhi waaalihi wasalam lidaalika hadda hadduu qof halkaan masjidka dhex yimaado uu kaadi la istaago kaba soo qaada halkaas uu kaadi la istaago maxaan ku samaynaynaa annaga dhaqankeenna sida ah markaan weliba soomaalina ya maxaa lagu samayn loota ayaa lagu dhufan loota soo saar maaha waa dhaqanka soomaaliyeed waa dhaqanka biniadamka saasa waa qofkaas dembi ayuu galay dembigaas in laga bixiyo ayaa la dooni maadaama la dooni dembiga in laga bixiyo ariiqee loo mari makeena caadiga ahoo lootada loo mari maya ee waxaa loo maraa hadiga nabigeena sala allahu calay wasalam xilliga nabiga nin baa kaadiyey oo saa sameeyey nin reer baadiye ah
intuu hashi soo kaxaystay meelaha ku tujiyay masjidka taraf kamida ayuu kaadi maxuuha taraf masjidka la fariistay markaas hal mar saxaabadu ay ku yaaceen waxa la yiri war ka joog waa lagu yaacay markaas uu yiri dacuuhu la tuzrimuhu u kaadi ha ku gooyin kaadi daaya markii uu iska kaadi dhameystay nin waxa leeyba ma ahaba ayuu nabigan u yeeray kaleey salaam markaas wuxuu ku yiri warniyo masaajidan ilaahay subhanahu wa ta'ala in lagu kaadiyo looma dhisin in ilaahay lagu caabudo ayaa loo dhisay waxad yeeli hawsha ha ku noqonin intii ayuu qaatay uu iska tagay soo saamaha kadibna waxa dhacday in nabigan uu yiri dallu ama wadaan biyaha la keeno Allah soo qaaday meeshii ha lagu shubay ayuu yiri nabigeena sallallahu alayhi wa sallam gafkaas dhacay waxa lagu daweynayaa siirada nabiga barashadeeda ayaa lagu daweynayaa siirada nabigeena saasoo kula dhaqmi jiray ninba waxa weeyaan dhawaaqay ayadoo salaad lagu jira iska qayliyay waa dhawaaqay markaas saxaabada ay ku qayliyeen markii salaada laga baxay markaas nabigeena kaleey salaam uu baray wuxuu baray habka loo tukada iyo habka loo aamusi tartiib u baray markaas wuxuu ku dhawaaqay wuxuu yiri ilaahayow aniga iyo maxamed noo naxariiso qof kale anaga labadanaga aan heen naxariistaada hasiini markaas nabigeena wuxuu yiri laqad kaleey salaam laqad xajarta waasi'an naxariista ilaahay waasi' ahayd ayaad soo koobtay inta soo dhan waxaan ka baranaynaa ikhwaan kiram yaani siirada nabiga barashadeeda kaleey salaam waxay kanaga caawinaysaa in aan ogaano dariiqada dacwada aan dadku gaarsiinayno tusaalooyinka aad bay u badan yihiin waxa kamid ah iyadoo saan maxfal loo fadhiyo nabigeena uu jooga kaleey salaam u dhax fadhiyo ayaa in dhalinyaro ah albaabka soo galay markaas wuxuu nabi allah haye iidan li fi zina inaan zinaysto iidan hadduu nin saa yiraa ka warrama ama waan zinaysan uu yiraa halka intuu faqiir istaago waxa lagu sameeyay waad garanaysaan markaas wuxuu yiri oodno soo dhawow ilaa uu yimaado markaas wuxuu ula dhaqmay ama طريق wuxuu la maray ajiiba hooyada raali ma ugu noqonaysa maya walaasha raali ma ugu noqonaysa in laga zinaysto waa maya gabadhaadi waxa kada eedada habaryarta wama ilaa uu muxuu ahaa kadibna uu ka qanca markaas dadka dhanna wuxuu yiri hooyadood iyo eedayaalkood iyo habaryaalkood iyo walaalahood iyo muxuu gabdhahoodii raali ugu noqonayaan xageed la aadaysa marka gabar kasta oo ka zinaysan lahayd ama waa hooya ama waa walaal ama waa gabar ama waa habaryar ama waa eedada bay u tahay marka dadkoo dhanna raali kama ahan kadibna markuu intaas ka dhaadhiciyay ayuu nabiga halkaas xabadka ah uu saas arbaaxda ugu dhuftay markaas wuxuu yiri ilaahay oo dambigiisana dhaaf farjigiisana zina ka dahir ninkaas markuu wuxuu ahaan jiray la yaltafitu ila shay wax haba yaraat xumaan ah dambe waligiis nin miicsada ma ahayn marka siirada nabigeena in la barta kaleey salaam habku ku dhaqmi jiray waxay naga caawinaysaa dacwadii xataa gudashadeedii inaan si qurux badan oo wanaag badan aanu gudan qodobka kale siirada nabigeena kaleey salaatu wasalaam ayaaba mucjiza ah laftirkeeda ba mucjiza min mucjizaat ah waxyaabaha nabigeena ku dhacay kaleey salaam hijradiisa hadii aad eegto iyo wixii muxuu ahaa qabsaday godkii uu ku jiray oo saddexda habeen uu ku jiray iyo waxa weeyaan jidka aad maray iyo xoolihii ama arigii caatada ahaa oo aan caalaha lahayn oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala caana ugu keenay iyo suraaqa iyo wixii ku dhacod ogeydeen oo nabiga inuu soo qabto kaleey salaam iyo Abu Bakar oo min boqol neef oo geel la siiyo u aaday iyo wixii ku dhacay siirada laftirkeeda ayaa mucjizaadka kamid ah weeyaan qodobka sagaalaad siirada nabigeena kaleey salaatu wasalaam waa baab waasica oo inaad qalbigaada xasilo oo raaxa iyo farxad aad dareento kugu sabab noqoni maxaa yeelay markii aad nabigeena kaleey salaam dhalashadiisa aad eegto oo u tagi doonaa isagoo yatiimul abi ah agoon isagoo ayuu adduunka yimid oo abihi isagoo calooshooyida ku jira ayuu dhintay waa u tagi doonaa insha Allah tabaaraka taala hooyadii isagoo 6 jir ah ayay ka dhimatay awowgii isagoo 6 jir ah ayuu ka dhintay waa yatiimul abi wal hantina ma haysto waa faqiir mucdima waxba aan haysanin xaaladaas ku barbaaray intuu soo maray ilaa uu a'zamu rajulin fi dunya wa fi al-aakhirah qof ilaahi uu khalqay qofka ugu qiimaha badan ugu sharaf badan ugu weyn uu noqday laakiin asagoo saa intaasoo masaa'ib oo la koobi karin oo waxa weeye dhan walba lah oo xitaa isagoo nool awlaadiiso dhan ay ka wada dhinteen intaan ka ahayn Fatima az-Zahra oo 6 bilood bas ka dambeysay ay kamid tahay oo wax wixii aad ogeydeen dhibaato la soo mariyay
intaas iyadoo isaa tahay ayaa haddana wuxuu ahaa ashraxu nnaasi sadran xagga xabadka ninka ugu muxuu ahaa raaxada badan ayuu ahaa nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam markaad halkaa eegto waxaad ka faa'iidaysaa marka inaad qalbigaaga adna aad qabooba ood farxad ku noolaato ood adduunkan culaysyadiisa aad iyo aad muxuu ahaa ula jaan qaadin ood muxuu dhibaato u arkin ayaan ka faa'iidaynaa qodobka u dambeeyo oo laga faa'iiday aad bay u badan yihin lakin 10 qodob baan ku soo koobay shamaaisha iyo siirada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam waxay u taagan tahay waa manhaj nololeed waa qorshe nololeed oo qof kastoo muslim ah oo naftiisa wanaag iyo saramar adduun imid aakhiro iyo xayaato wanaagsan oo mid adduun imid aakhiro la dooni waa manhajkii uu ku dhaqmi lahaa waa qorshe kuu degsan oo nabigeena calayhi salaatu salaam uu kuu dejiyey ficil ahaanna iyo qowl ahaanba uu kugu dejiyey oo adduunkaana inaad nabad iyo amni iyo barwaaqo iyo khayr iyo karaamo aad ku noolaato aakhirana badbaado iyo janno iyo darajo sare aad ku gaarto manhajkii iyo qorshihii iyo markabkii aad raaci lahayd wayaan siirada nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam intaa waxaan ugu baxaynaa marka ikhwan alkiraam siirada nabigeena calayhi salatu salaam ahamiyadda ay leedahay iyo booska iyo qiimaha ay joogta oo runtii aad iyo aad u sarreeyo maxaa yeelay cidda laga sheekayna weyninka ay leedahay iyo qiimaha ay leedahay ayuu noqonayaa waxaan qiimahooda yeelanan siirada nabigan hakaba soo qad haddii in laga hadla ay noqoto nin madaxweyne ah siiradii in laga sheekeeyo iyo qof muxuu ahaa bannaanka wax ku warto siiradii in laga sheekeeyo soo kalama sarreeyaan way kala sarreeyaan maanta taariikhdii hebel waa la qiimayna dad badan baa yaqaana ninka waratada ah waxaa laga yaabaa aabihii iyo hooyadii iyo aqribadiisa iyo raximkiisa inay yaqaanaan laakiin ninka madaxweynaha 40 milyan ama 50 milyan amaba caalamka oo dhan intooda badan ama intooda wax baratay inay taqaanaan laga yaabaa oo nin walba muxuu ahaa taariikhdiisa iyo maalintuu dhashay uu yaqaano marka siirada nabigeena marka waa saasoo khayru khalqi illaah ayaa taariikhdiisa ay tahay marka booska ay joogta waa boos noocaas ah waxaan u gudbaynaa marka kitaabkan ama kutayibkan yar oo kooban oo barakaysan waxaa la yidhaahdaa alurjuuza almii'iya alurjuuzatu almii'iya fii dikri xaali ashraf albariya waa tixda yar oo boqoleyda ah almii'iya waa boqoley urjuuzana waa tixda yar fii dikri xaali ashraf albariya khalqiga kan ugu sharafta badnaa xaaladdiisa in la sheego oo laga warramo ayay muxuu ahaa ku suntan tahay ama saa weeyaan sumadeeda iyo magaceeda alurjuuz almii'iya fii dikri xaali ashraf albariya mu'alifka kitaabkan ama tixdan taxay waxaa la yidhahdaa ibnu abilciz alxanafi ayaa la yidhahdaa oo geeriyooday 792 hijrada nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam kitaabka akhyaarta qaara waxay sheegaan amaba in mu'alif kale uu leeyahay laakiin sida mashhuurka ah oo la yaqaano oo shuraaxda mucaasiriinta ah ay diyaariyeen oo amaba ay waxaa weeyaan ay ku sharxeen inuu mu'alifka leeyahay weeyaan weliba waxay u tixraaceen kutuba farguri ah ama makhtuutaad sida loo yaqaana oo dhowr ah oo dhammaantood sanad lah oo u nisbaynaysa ibnu abilciz alxanafi ayaa jirto oo ragga soo naqli waxaa ka mid ah ibnu tuuluun muxuu ahaa waxaa weeyaan sanadkiisa ayuu ku sugayaa rag badan ayaa u nisbaynaa oo waxaa weeyaan in uu kitaabka isaga leeyahay ninkaas marka alqaadi xitaa isaga hadduusan lahayn cala alfardi waataqdiir muhiimadda waxaa weeyaan waa urjuzo yar oo kooban oo qiimo badan oo 100 beyd ah oo qarnigaas oo hijrada nabigeena sal slam la alifay oo runtii wax badan oo badan oo badanna in sha allahu tabaaraka watacaala laga faa'iidi doono siirada nabigeena oo aadka u ballaarsaneedna 100kaas beyd nuxurkeedii uu ku soo koobay raximah allah raxmatan waasica imaamkaas marka alimaam alqaadi cali ibnu muxamed
ابن أبي العز الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 792 للهجرة تضوبق اليوم لبا iyo 9 nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayuu geeriyay marka qarniga 8aad weeyaan qarniga 9aad ma waa qarniga 8aad ninkaas marka ibn Abi al-Izz al-Hanafi markuu yaraa waxbarasho iyo bayt cilmin ayuu ku barbaaray cilmiga jaceelkiisa iyo xubbigiisa ayuu ku barbaaray wuxuu ka faa'iideystay aymadii weyneed casrigiisa joogay ragga aadka loo yaqaano oo dhamaanteen aan wada naqaano oo ka faa'iideystay waxa kamid ah al-Hafiz ibn Kathir alayhi rahmatullah ninka marka muallifka kutubo badan ayuu leeyahay waxa kamid ah sharaxan ataqanan kitaabkan aqeeda tahawiya sharaxiisa oo mashhuurka ah oo mujalladka aad ku weyna ninka iskala weeyaan waxaana sheekhu asan hore u sheegay al-Hafiz ibn Kathir alayhi rahmatullah waxyaabaha si xoojina waxa kamid inuu Hafiz ibn Kathir sheekhiisa yahay ibn Abi al-Izz kitaabkan uu leeyahay siiradan uu tixay ama uu taxay meesha uu tiirina ama meesha uu ka soo qaatay inuu yahay kitaabka sheekha isaga sheekhiisa waa Hafiz ibn Kathir uu leeyahay oo loo yaqaan al-fusul fi siirati ar-rasul kitaabkaas inuu ka soo qaatay ayaa muuqata waxa uu daliil markuu bilaabay kitaabka wuxuu yiri wa ba'du haka siirata ar-rasuli manzumatan mujazat al-fusuli سيرة ابن كثير وحيد الفصول في سيرة الرسول يا في سيرة الرسول مركا تقريبا الحافظ ابن حافظ ابن كثير ويان شيخ عيسى حافظ كمركا أما شيخ قاضية كتاب كان يولي هي كتاب كان وبقول بيت وآدي سلس وهاد معاني ذي أي عد هي معلومات آد وبضنا مالك جمع سيء وحنوجد بين مركز إن شاء الله تبارك وتعالى inaan galno urjuuzadii laftirkeedii aan bilowno cidii haysata kitaabkaas na way haysataa cid aan haysanin insha Allah tabaaraka wa taala sidoo sheegay muadinka dukaamada nagu dhagan oo kutubaha lagu iibiyo maktabadaha waa laga heli oo kitaab yar oo 100 shilin iyo wax la mid meelaha jooga weeyaan يقول القاضي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور 12 في يوم الاثنين طلوع فجره وافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حان وبعد عامين غطى فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء وجده للآب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى شام رحل وذاك بعد عام 12 وكان من أمر بحيرة ما اشتهر وصار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 اذكرا لأمنا خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي مجلس كدنبا أيان مركا هالكاس كسي عن بقادة دونا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله وجزاكم الله خيرا